wayahay waxa taagan muran u dhaxeeya labada dawladood ee Djibouti iyo Kenya ay ku aadan hanashada kursiga ama xubinta aan joogtada ahayn golaha amaanka ee qaramada midoobay labada dalba waxa weeye waxay sheeganayaan abaal inay ku leeyihiin aasaasidii dawladan shirarkii dib u heshiisiinta ee markaas dhacayay labadoodaba ciidamo ayaa ka jooga Amazon hadii kursigaasi iminka uu muuqday in African Unionka ay la rabaan Kenya Djibouti ay ku doodayso in ugu yaraan laba jeer ay Kenya hore u qaadatay kagana dambeysay mowqifkiina xagu noqonaya سؤاشان وسؤال آد سهل واه جيبوتي ودد والهنا كرسي قودنا وكرسي جنوي عد كودنا وعد كنا حدا أفريكان سكوريتي كونسل بيسن سكوريتي كونسل كا وحي أهيد أنا جي يجينا كترتنو إثيوبيا iyo Sudan ay tartamaan Sudan iyo Ethiopia waa tartameen Ethiopia heshay Sudan baan haysay marka waxa la sugay anaga iyo Djibouti inaan tartano hadda walaalaheeno kursiga noogu fadhiyaan waa kursigan ku fadhino waxaan ku tartanay meesha ma yaalaan iyaga noogu fadhiyo oo hadda bishan chairka ka ah Peace and Security Council kaasna waa lamid inta ay taagan yihiin oo ay tartamayaan hadda su'aal is weydiiyo ma ah waa kursi anagu naftigeena meesha aan ku leenahay oo danaha Soomaaliya aan lagu dhibaateenin wayahay su'aasheedii ugu dambeeyo deegaanka Soomaalida ee dalkan Itoobiya waxa leeyihiin xadka ugu dheer wali ma sidoo aragtaa isbedelka ka dhacay hadda maamulka cusub uu ku yimid ma rajeynaysaa inaad jigjiga imaatid madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ma is aragteen intuu xilka hayay ma wada hadasheen arimaha bal Mustafa waa wada hadalnay waan is aragnay intuu xilka hayay runtii shaqo fiican waa hayaa oo runtii isu soo dhaweynaya Ethiopia iyo Soomaaliya isu soo dhaweynaya toos wada shaqeyn nooga ma dhaxayso waxa toos nooga dhaxaysa wada shaqeyn dawladda federaalka ah halkan asaba ka talisa laakiin waxaan aaminsanahay runtii inuu ka shaqeynayo shaqo wanaagsan hayo sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia aad buu mahadsan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo fursad noo siiyay inaan wareysiga nooga qaadno magaalada Addis Ababa ee xarunta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya intaan wareysi ama barnaamijkan lamid isaga imaan doono waa Ismaaciil Ibrahim Buurgaaba iyo bahda Universal TV ee dalkan Itoobiya oo gabi ahaan baydan leh kulanti dambe oo xiiso leh